سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع inaan mustaqbalka isku dayi karno inaan eegno iyo camalka laynooga baahan yahay inaynu qabanaa muxuu yahay. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقى يا إخوتي بعدكم لا يراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسigan maanta waxaan isku dayayaa inaan mustaqbalka isku dayi karno inaan eegno iyo camalka laynooga baahan yahay inaynu qabanaa muxuu yahay. alcaalam alislaami ama dunida muslimka isbedelo xoogan baa ka socda. ummadda soomaaliyeedna waxay ka mid tahay caalamka islaamiga isbedelku uu ka socdo. waxaa laga yaabaa dhowr gooroo hore inaan isku dayay bal inaan odorosi karno waxa xalku yahay. 1929kii markuu bush al-ab oo xamar ka soo degay dersi duuban baan galoo la yidhaha ayna alxal. 1993kii markay wadaadadu bariga ku dagaalameenna dersi isna waxa uun ku saabsan oo la yidhaha ariiq ila alhadaf baan galay. maxaakimtii islaamiga ahayd ee xamar markay duntay dersi ku saabsan mal makhraj oo aan isleeyahay waad odorosi karaysaan waxa jira baan galay. maantana wadciga soo socda iyo siday u eg tahay isbedelaa jira. weli ummadda muslimkii su-aashii ahayd mal xal mal camal waa taagan tahay. haddii aan rabno waxaynu qabanayna inaynu ka waranno iyo mustaqbalka soo socda ummaddu sida u ekaan doono inaga aragtideenna ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala qeybka. waxaynu u baahanay inaynu daraasayno altaariikha waalxaadir. markaasaynu waxaynu ku dhisi karnaa maxay noqon kartaa waxa soo socda, sinaarioga cusubi muxuu noqon doonaa. waxaan isku dayayaa inaan bal sawir kooban ka bixiyo sida wax u socdaan iyo sida wax yihiin hadda. markaan taa garanna baynu odhan karnaa xaggaynu wax ka qaban karnaa ama maxaynu qaban karnaa. waa ra'yi ka mida uuna aaraada dadka indhaindhaynaya bulshada muslimka ah iyo dhanka ay u socoto. wadciga raahinka aynu iminka ku jirnaa waa natiijo ka dhalatay taariikhda, waa natiijadii ka dhalatay acmaashii bini aadamku uu sameeyey, gaal iyo muslimba. wixii bini aadamku soo qabtay unbaa ilaahay ku abaalmariya. ilaahay dadka ma dulmiyo. in allaha laysa bidallaamin lilcabiid. rabbi subxaanahu wa tacaala dad wanaag sameeyey dhib kuma abaalmariyo.
dad xuma sameeyeyna wanaag laguma abaalmariyo ee nolosha bini aadamku ay ku jiraan waa bima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir. waaqacaynu hadda ku noolay dunidu qaab bay u dhisantay bacda alxuruub alcaalamiya, dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay kadib. dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay waxay sababeen maalan dagaalkii koowaad ee dunidu wuxuu dhammeeyey wixii la odhan jiray alkhilaafa alislaamiya. dowla alcuhmaaniya waxaa ugu dambeysay dagaalkii koowaad ee dunida. nataa'ijtii ka dhalatay waxay noqotay in dowladdaas ay dunida ka baxdo, jamhuuriyadda turkiga la yidhaahdaa inay ka dhalato ka timaado. reer galbeedku waxa uu kula dhaqmay dunida kale siiba dunida muslimka marxaladii koowaad marxala kasri alcidaami waalcunf ayuu aqoonyahanka ama istraatiijiga muslimka ee la yidhaahdo doctor cabdalla nafisi wuxuu leeyahay waxay ku bilaabeen marxalo loo yaqaano marxala kasri alcidaami waalcunf oo madfac iyo rasaas ummadda lagu qabsado, xoog baa lagu qabsaday caalam alislaami. markii la qabsadayna waxaa la bilaabay marxalati tajzi'a, qaybin in la goboleeyo oo xariijimaha hadda dunida ka taagan waa nimankii xoogga badnaa ee dunida qabsaday xariijimihii ay dhigeen. meeshay doonaanna way mariyeen, meeshay doonaanna way ka weeciyeen. caalam alislaami oo dhan waa la iswada suday, qoloba gobol baa gobol yaroo kala raaciyay, qabiil bayn baa meel lagaga daray, dabeetana xariijimahaynu inimaka naqaana la dhigay. intaa kadib waxaa bilaabantay baa la yidhaha marxalatu taqriib, inay soo saaraan duul muslimiinta ka mid ah oo afka gaalada iyo dhaqanka gaalada sugay, dhaqankooda iyo diintoodana wax magarato ka ah. jahli uu kaga sugan yahay dhaqankoodii iyo diintoodii, dhaqanka dadka kale leeyihin iyo afafkoodana gacanta si fiican u bartay oo iyaga ka amar qaadanaya. sida ay wax u arkaan si u dhadhowna wax u arkayaba, nolosha siday u qiimaynayaan ama siday u odorosayaan kama foga sida uu ninka reer galbeedkii u arkayo ama se uma u odorosayo. dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyey, dunida inteeda badan waxaa ka taliyey dunida reer galbeed ama white man ninka la ydhaha, ninka cad. bariya galbeed kale noqday, markii dambena dhan isugu biyo shubtay. maanta dunida waxay yidhaahdaan dowladaha waxooga badan leh taladeeda ay ku socoto waa maraykan iyo EU oo la isku daro, yurub iyo maraykan oo la isku daro. waxay yidhahdaan adduwal almarkaziya. dunida inta kalena waxay yidhaahdaan waa alatraaf, dacallada. duwalka markasiga aragtidooda iyo siday wax u arkaan ayay dunidu ku dul wareegtaa inteeda badani. waxaa jira waxay yidhaahdaan wasaa'il taxakum, qaabkay u maamulaan dunidatan iyaga intii tamartooda ah. dunida rabbaa maamula subxaanahu wa tacaala, laakiin iyagu itaalkooda iyo xooggooda siday u maamulaan. mar labaad haddaan ku noqonno aqoon-yahankaasi istraatiijiga ah professor cabdalla nafisi wuxuu leeyahay wasaa'il arbaca ayay dunida ku xukumaan. 4 shay baa keligood gacantooda ku jira ama inteeda ugu badan ay ku jiraan. 4taa xadhig ayay dunida ka hogaamiyaan. xadhigga koowaad waa silaax hubka. dunida hubka ugu badan iyagaa soo saara, warshadaha ugu waaweyn hubkana iyagaa leh, suqa baac mushtari hubka ugu tirada badan lana iyagaa leh. dani waxay ugu jirtaa in dunida dagaalla ka socdaan, dunida wada nabadi
faa'iido badan uguma jirto haddana maadaama iyagu hubka u hayaan waxay isku dayaan inay xukumaan goormaa la dagaalami karaa goormaa se dagaal ku dhammaanaya yaa guulaysanaya yaanse guulaysanaynin yaa hub la siinaya yaanse la siinaynin yaa hubka laga iibinaya ku dagaalgelaya yaa isbeer baadka hubka laga haynayaayo dayaarado khaliya dabaabada aan shaqaynayn haysanaya dunidu qaabkay u dagaalanto inta ugu badan waxay isku dayeen inay gacanta ku hayaan xuduuddaa cidda ka soo gudubtana waxaa la isku dayaa in la cunuqabateeyo ama la dilo ama aanay suurtogelin oo hubka chemicalka dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan hubka nuclearka dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan hubka caynkana lama ogola iyaguse way haysanayaan waayo iyagu ala biruuxi bay soo arkaan waa dadkii mas-uulka ahaa idinkuna waxaad tihiin hayru mas-uulkii marka alwisaaya calaykum waa in laydiin taliyaa inta garaadkiinu korayo qadiyadda labaad ay dunida ku maamulaan waa masalada loo yaqaano alkhamaat the resources gacantooda waxaa ku jira labada khaamo ee ugu weyn dunida waa waxa shidaalka la yidhaahdo shidaalku waxaa gacanta ku haya hal shirkadoo weyn oo maraykan oo la kala burburiyey standard oil shirkad la yidhaahdaa jiray Rockefeller nin la yidhaahdaa uu lahaan jiray oo dowladda maraykan ay u aragtay xooggeedu inuu xad dhaafay oo dowladdu lafaheedaba uga baqatay oo dabeetana maxkamadooda sare ay ku xukuntay in 7 shirkadood laga dhigo dabeetana shirkadaha caalamiga ah hadda taqaanin waa the seven sisters ka waxa la yiraahdaa waa standard oil oo la kala jajabiyay the seven sisters shirkadaha loo yaqaano oo maraykanku leeyahay ayaa dunida shidaalka sahamiya oo soo saara oo rara oo suuq geeya oo safeeya dad kale shidaalka midalan carabtoo kale iyo wixii la halmaala waxay ka helaan inta la cuno inta budgetka dawladda ah xataa investmentku waa inuu xaggooda noqdaa qoladaas lacagta wixii dheeraada iyaga agtooda waa in lagu invest gareeyaa shidaalka marka la yidhaahdo dadku inta badan waxay u fahmaan kan lagu shubo un gawaadhida inuu yahay maaha wuu ka badan yahay shidaalka in 28 item oo dunida waxa ugu waaweyn ee la isticmaalaa baa laga soo saaraa waxa dunida daawo la sameeyo inta ugu badan shidaal baa laga soo saaraa waxa dhar la xidho polyesters inta ugu badan shidaal baa laga soo saaraa waxa wax lagu nadiifiyo ama wax lagu maydho ama detergentska la yiraahdo shidaal baa laga soo saaraa waxa fertilizerska la yiraahdo beeraha lagu shubo shidaal baa laga soo saaraa waxa pesticideska la yiraahdo beeraha lagu buufiyo shidaal baa laga soo saaraa bal qalabkani hor yaalla hadda waxa laga yaabaa caag iyo waxa kale inuu ka samaysan yahay ama computerkan horteeda yaalla caagag iyo qoraalada waxaanu ka samaysan yahay waxaan oo dhan shidaal baa laga keenaa yani 28 item by product ka badan shidaalka caadiga la yaqaano ninka shidaalka dunida gacanta ku haya macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalihii ugu badnaayay dunida iyo wax soo saarkeedii iyo resourcekeedii ayuu gacanta ku hayaa walaga yaabaa maanta maraykan iyo kuwaasi shidaalka carabta inay ka maarmi karaan maadaama ay kii xajariga ha bilaabeen laakiin ma rabaan inay ka maarmaan oo dunida ugu taliyaan China shidaalku qaadanaya Japan shidaalka qaadanaysa iyo dunida technology-ga wadata waxay qaadanayso waa inuu iyagu taliyaan shayga afraad ay dunida ugu taliyaan waa waxa loo yaqaan sharciyada dawliya dunida waxay u sheegeen in United Nation laga mid noqdo United Nation waxay yiraahdeen annagu ba qaanuunka ay ka socda veto-ga iyaga socda iyaga nin kamid ah hadlayo wuxuu leeyahay mujtamaca dawliga wuxuu arkaa duwalkiina sayna maariqiin tihiin ama ka baxdeen xuduudii bini'aadamtinimada wixii dadka kale ka yimaado waa veto wixii masaalixdiisa ka hor yimaado waa veto wixii uu rabaana waa inay fulaan waa alqaanuun dawli waxa la yiraahdaa ama sharciyada dawliya iyagu gacanta ugu jirtaa qodobka afraad ee ay dunida ku maamulaan waxa weeyaan thaqaafa waa waxan media lagu tilmaamo dhamaantii
hadduu TV yahay, hadduu raadiyo yahay, hadduu internet yahay, hadduu jaraa'id yahay, hadduu majallaad yahay, hadduu film yahay, waxaas productka ugu badan ee dunidu ay dhegaysato ama daawato ama aragto iyaga soo saara. waa waxa loo yaqaano jaamacaadka oo iyaga hogaamiya oo culture-ka westernka ay dhigaan. waa waxa loo yaqaano yacni soft power-ka waxay yidhaahdaan oo dhan alquwa annaacima, awood aan namarna kuu geysanayn waxna kaaga tegayn bay yidhaahdaan. waa alquwa annaacima, waa lagu dili karaa iyadoo aan wax dhiiga kaa daadanin. idan haddaad rabto dunida inaad eegto siday u socotaa, waxaad u baahan tahay 4 qodobba inaad aragto. waxa intaa la socda baynu leenahay oo dhanka kale ah. haddaad quwada aragtay niqaati dacfina waa jira. waxaan leenahay ninka cad iyo Maraykan iyo Yurub iyo inta daba socota civilizationkoodii xadaaradooda declination baa ku socda. qimadii way gaadheen foorarkay bilaabeen. iyagu waxay ku dadaalayaan foorarku inaanu slope noqon, aad steep mid aad u dheereeya inaanu noqonin, mid sidaas aynu noqdo cala alaqal quruun socon kara. kow waxa burburay waxay u yaqaaneen valueska, alqiyam aw alakhlaaq. dunida waa dhoweyd surwaalka jiiniska iyo xorriyaddu isku macnay haayeen, coca-cola iyo cadaaladdu isku aragti bay haayeen. yacni waxaa loo arkayay umamka dunida xorriyadda ugu yeedhaya dadku inuu xor noqdo, umamka dunida cadaaladda u hogaaminaya ee dadka ugu yeedhaya in cadaalad bini aadamtinimadu ku dhaqanto inuu yahay reer galbeedka. ghaswu fikriya ay bashariyadda ku sameeyeen, waxaana loo arkayay inay maxay waxaasoo dhan iyagu hogaaminayaan. haatanse aragtidii dunida masalada ku saabsanayd way isbedeshay dhacdooyin dhacay daraaddeed. xabsigii abu qurayb la odhan jiray iyo guantanamiya wixii ka dhacay iyo afghanistan iyo ciraaq wixii ka yimi waxay abuureen in bashariyada dunidu ay fahamto xorriyaddiiyo cadaaladdu sidii la moodayay inaanay ahayn. valueskii awal westernka loo haystay inuu valuega ilaaliyo, alqiyam inuu ilaaliyo inaanay ahayn. hubuut alqiyam baa yimi. waxaa kaloo ku soo biiray dhaqaale burbur dunida yimi. waxaa ogtiin shirikaadkii ugu waaweynaa dunida in badan oo ka mida inay kacday, baanankii ugu waaweynaa dunidu inay kaceen. maxaa la yidhaahdaa dowladihii waaweynaa sida Maraykanka oo kale trillions dayna inuu ku jiro. dhaqaale burbur aad u culus baa dunida ka dhacay dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey. ay suurtoobi weyday cajsiga duwalka ku jira dhaqaalahooda in la dabooli karo oo sanad walba dowladdu trillions dayna ay qaadanayso. waxaa kaloo isbedelo dunidu ogaatay. Rumsfeld iyo gruubkiisii markay wax weerarayeen waxay qaateen aragti odhanaysa hubka ugu badan iyo xoogga ugu badan aan ku garaacno meelahaynu weerarayno, askari badan iyo inan gelinin, laakiin wax dhaqaaqa waa in la waayaa inuu dhulka la sinna. taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin dunida inta kale inaynu farta ugu yeedhno. iyana may suurtoobina cagsigay noqoto. hubkii ugu badnaa baa la isticmaalay, dhaqaalii ugu badnaa baa la isticmaalay. afghanistan 45 dowladood baa dagaalkeeda ka qayb galay. hub wixii dunida la hayay ee waan ahayn kuwa nuclearka iyo baabkaa lagu sheega aan ahayn baa lagu isticmaalay. wamaca dalik waxaa caddaatay shucuubtu hadday musir tahay, mu'minna tahay inaanay jabin. waxay maanta ogolaadeen ama la raadacaynayaa Taalibaan iyo gurbada la mida in lala galo heshiis iyo wada hadal in la sameeyo. ama waxay gaadhay xad Obama waafkiisa ka yidhaahdo healthcare-ka iiga muhiimsan inaan dagaal kaloo cusub galo. yacni qadaayadkii dhaqaaleed daakhiliga ahaa ee healthcare-ka ayaa ka muhiimsan buu leeyahay inaan maanta dagaal kala qaado. aragtiyahaasi waa aragtiya ay sheegayaan dadka aqoon-yahanada ee baabakan ku takhasusay.
laakiin taa macnaheedu maaha inay gacantooda ka baxday qiyaadatul caalam maaha waa in declaration uun bilaabmay macnaheedu maaha in dunidu farahooda laga muroojiyo ay ka baxday still they have the power weli iyagaa talinaya maxaa xal ah markaa dhanka kale markaynu u kacno caalam alislaami duwalkii ka jiray waxay noqon waayeen duwal dadka qanciya shucuubtooda dowladda waxaa la yidhaahdo laba shay baa lagu qiimeeyaa waxay dhahdeen dowladaha waxaa lagu qiimeeyaa almashruuciya walinjaasaat bay yidhaahdaan dowladda waxaa lagu qiimeeyaa inay sharci tahay inay qaanuuni tahay inay bulshadu u aragto inay dowladdeedii tahay dadku dadweynaha ay xukuntaa inay raalli ka yihiin oo u arkayaan waxay iyagu samaysteen inay tahay ka labaadee lagu qiimeeyaana waxa weeyaan baa la yidhaha alinjaazaat wixii ay fulisay ee horumar ku saabsan ee waddanka iyo istiqlaaliyadiisa inay ilaaliyaana ee ku saabsan taxqiiq alcadl alijtimaaci bulshada inay si siman ula dhaqanto si siman u maamusho ee ku saabsiisan bulshadu qiyamka iyo diimaha iyo mabaadi'da ay haysato inay xifdiday waa injaasaadka dowladdu ay qabato marka dowlad kasta oo basharku uu qiimeynayo wuxuu ku qiimeeyaa mashruuciyadeeda inay dowladdani dowlad xaq u leh tahay inay dadka maamusho iyo injaasaadkeeda caalam alislaami duwalka ka jiraana labadanba way adagtay inay ku doodaan bulshada raalli naga ahoona keentay oo ummadda waxaan wadale waa adagtay injaasaad ay sheegtaanna waa adagtay waddanka istiqraarkii siyaasiga ahaa cadaaladiisii ijtimaaciga ahayd horumarkiisii cid sheegata maanta oo caalamulislaami ka tirsanina way yartay haddii labadaa la arki waayana injaazaad ama development wax soo saar iyo horumarin dhab ah oo statistics ixsaayaad ay sugayaan oo ay dowladdu ku doodo oo soo bandhigto mid iyadu waa caadi bini aadamka tumuuxiisa yani doonista bini aadamka lama buuxin karo dowladdan dunida laga cabanay ma jirto dowlad intay timaado dadku wada satisfied noqonayo laabtu xaadmayso laleeyahay wixii aanu rabnay qabatay ma jirto oo tumuuxa basharka lama buuxin karo doonista bini aadamka laakiin hadday dowladdu haysato wax statistics oo dhab ah mashaariicdii iyo horumarkii iyo wixii ay samaysay way ku doodi kartaa inay tahay maxay dowlad xaq u leh taasi waxay abuurtay kalsoonidii shacabku uu hayay dowladahooduna inay burburto weliba intaa waxaa la sii socota markii ay dowladihii caddayn kari waayeen inay dadku raalli ka noqdaan oo dowlad sifo sharciyo dadku raalli kayo ku timi noqon kari waayeen ama injaasaadkoodii samayn kari waayeen wixii ay horumariyeen la arki kari waayey ee muranku batay waxay isku dayeen dowladuhu ama inay dadka been u sheegaan been ku harqiyaan aan jirin amase inay furaska iyaga lagu bedeli karay silmiga si nabada in dowladda loo bedelo hadday wax qaban kari weydo inay joojiyaan amase inay diidaan in laga hadlo ama la tacbiiriyo waxqabada la-aantooda dabeetana waxay isku dayeen alxalli alamni ciddii xagga iyaga soo eegta ama naga hadasha jeelkaa leh irhaabi weeyaan xukm alirhaab in la saaro muddaa lagu wadayo shucuubtii way kacday markay kacday wixii loo yaqaanay rabiic alcarabi iyo wixii la nooc ahaa baa dhacay laakiin iyana weli khuyuudu gacantooda kama bixin oo dib bay waxu inqilaabeen adowla alcamiiqa dib bay sanadna waa ka helayaan duwalkii khaarijiga ahaa tiyaaraadkii islaamiga ahaa badh ka midana cunfigay kusii ziyaadisay iyo inay wax walba gacanka hadal xal uga dhigaan waxa isweydiinta le markaa waxay tahay maxaa xala mal camal maxaynu qabanaa haddii aynu nidhi caalamku saasuu u eg yahay dowladihii muslimka ahana saasay u eg yihiin
maxaa la qabanayaa shucuubta islaamiga ahi bini aadamka kale ay la mid yihiin marka waxyaabaha qaar laga eego saddex qadiyadood baa hor taalla ama dadku saddex nooc bay noqdeen nooc waa dad yaa'isiina oo mutashaa'imiina oo mustaslimiin lilwaaqica dad quustay oo nolosha ru'ya sawdaa aragti madow ka leh nolosha iyo inaan waxba la bedeli karin iyo sidaa aynu nahay aynu aqballa leh wax kaloo la qaban karaa ma jirto buu ku leeyahay maxaa la qaban karaa gaala isu tagtay muslim waxba noqon waa wadaadadii meel kale ka dhace waxba ma soo socdaan adduun waa madow aakhiraynu sugaynaa ya aakhira zamaankii weeyaane ta saacadda la afuufayo ee ilaahay dadka janniya naar u kala saarayo hal iska jooga bay taagan yihin kooxdaasi inta badan markay kula hadlaan waxay tirinayaan wixii hazaa'im dhacay inta gooboodee la guuldaraystay inta meelooda la jabay inta meelooda wax ka dhaceen marka muslimka wuxuu ka arkaa oo qura meelaha annuqaat sawdaa meelihii la jabay cadowgana wuxuu ka arkaayo qura meelaha muruqiisa uu ka muuqdo iyo imkaanaadkiisa haa'ilka labadaa markuu isku daray markaa xooggoodiina wuu arkay kuwan dacfigoodi iyo jabkoodiina wuu arkay labadaa markuu isu geeyeyna wuxuu mustaqbalka ka arkaa inaan waxba la samayn karin haddaad wardiyi karto iska wardi yaan wardigu ku dhaaf oo su-aalahay ku weydiinayaan waxa weeyaan hal min jadwa lima naquumu bihi waxaan aynu wadno ma waxbaa ka dhalanaya ma waxaad arkaysaa juhuuddan iyo waxoogaagan aynu bixinayno inay wax yanfaca wax himaara wax midhaa inay keeni karayaan mar kastoo aynu beer yar beerraba tuufaanunbaa ilaahay ku itixaamo uu marayaa bay leeyihin markaa quus bay taagan yihiin kooxdaas gruubka labaad waa qolaan ku tilmaami karo alxaalimuun ama almutahawiruun waa qolaan odhan karo waaqaca ma arkaana way riyoonayaan day dreaming bay ku jiraan imkaanaadkiisa iyo awooddiisa ma eegayo si fiican umuu fahmin waaqacan ku hareeraysan si fiican umuu fahmin culumta sharciga ah si fiican umuu fahmin adawaadka iyo qaabka bulsho loo bedelo bini aadam loo bedelo ay bini aadam haddaad rabto inaad bedesho ugu horreyn waxaad u baahan tahay alcilmi shaamil aqoon dhammaystiran oo ah waxa jira haddaad si fiican u fahamto waxaad garan kartaa sinaariyooga ixtimaalaadka soo socdee nololeed aqoon baad u baahan tahay ah qaabka wax loo bedelo iyo waxay u baahan tahay waxaynu odhan karnaa gruubka kani waxay qaateen alqafsu ila almajhuul meel madow bay rabaan inay ku boodaan waxaani wax la eegta ma ahee aan ka diriro waxaani wax la wadi kara ma ahee ama kuwaa cagsigooda oo waa maxay ilaahay awooddiisu muu ka warramaya iyo inuu ilaahay casiiz yahay iyo inuu jabbaar yahay iyo inuu dunidu gacantiisa ku jirto iyo waa kaas wardiga aan badin ilaahay baa wax bedeliya mutawakil maaha tawaakul buu aaminsan iyo tawakul ma aaminsana waxaa iskaga qasmay binaau lumma iyo binaau dawla waa laba kale nooca ummaddu hadday burburto dhismay u baahantahy dowladdu hadday burburtana dhismay u baahantahy ummada hadday jirto dowlad in la dhisaa waa wax fudud soomaaliya waxyaabahay u dhismi weyday waxaa ka mid ah dowladdii soomaaliyeed markii la burburiyey dowladoo qura lama burburinayo ummaddaa lala burburiyey ummaddu waxay qiyam iyo dhaqan iyo aragti iyo wadaagaysoo dhan way baaba'day kuwa wax la rabaana dowladnimaduunbay ka warramayaan saa daraaddeed bay 20 shir galeen oo xaafad xamara inta maamushaa mar kastaba ay ka soo baxdo
يعني أمدا آن لهشيسين أن دقن كذا لبدلين أن دين تذا وحلاقة قبنين أن أخلاقيات كذا وحلاقة قبن أن وحي كم إذا سنيد دبلون نولين إنه لبن إنه عدو وحما وضياشة هذا تراني علبة إنه نستلنا لكن شركات بين وضع سبع سنين كور وعقل عادي وحنا أقبلين قبائل سديلة يريرك لجوري يد سديلة كل الدولة بان وضع لأن الدولة الصومالية بان على هذا وحنا عقل وأقبل كريم إذا إن أمد الله سمايا كهر رئيسة إن الدولة سميستيد دولة أسهل ما تكون وحفظ مؤسسات الدولة إلا سمايا وحثيري بدني عقل بدن وباهنا لكن هداني أمدي تشرين مؤسسات الدولة ده كستات سميسا ما صعنيان وهي أمد ما تشرته داني أمد تشرين وح كسر ريا ما تشريا إذا جروب كلبارنا وحنوت المامية إن الجروب حالمين يهين جروب كصدحات وحنوار كيا إن الجروب كأركت السليمة ليهيني طائفة وحي الروميسيين دبدوني ديناني من إلا يني حل هذا موياني مشكلة بني آدم كقبصته بلا حل مجره وحي الروميسيين تاريخ بني آدم كولي قد بيني تشالنج أهيد ولي قد بي أهيد محي عقبات يا عراقل لكن بني آدم كمحاولات كمركو السماية عقلات كستوى لقو قد بكرا وحي الروميسيين تاريخ دي بني آدم كمركو ندبقوا النقرنا وحي إنه أقنا هاي بدنو اسبدل سميي بل كقاركودو ننقل اسبدل كو سميي هو ما ترتكدغي هذا تاريخ دي نبيده دبو نقطه يا هذا تاريخ دي صالحين تدبو نقطه يا هذا تاريخ ده هلييده دنيا اي ترسته حتى يا مسلم كاين دبو نقطه واحد اركيسا wax la yiraahdo impossible inaanu ka jirin mustahil wax la yiraahdo waaqi الناس inaanu ka jirin waaqi الناس inuu yahay wax la bedeli karo وانا wax taariikhdu shaahid ka tahay idan ya'si meesha ma yaalo waxa sayala adawaadka wax lagu bedelayo in la raadceeyo groupkani saddex shay bay rumaysayin marka haddaan tilmaamo كو الأمل ينانو بنادم كقوصنين لبا العلم الشامل بالواقع وبأدوات التغيير هي وبالعلوم الشرعية انتبه وحكو بدليه وحو بدليه قافك بدليه انت بين واقف في عنه ليه مسألة الصدحاتنا وحوية مسألة العمل اكتفتي الشقاء نقبريه انات فيلسوف نقونين فلسفة ميل باي فريستان دبتنا أركتيه الدنيا كسو كردية لكن أنبياء النوع ما أنبياء أركتيه عصب يديما لو سو ديبو السودان لكن ودد عمليين يجا وحقبنا يي أو وحبدل يي وحنو باهنا مركا إن لبسا it will take time وقت قادنا نسا qof inaad isbedel ku samaysaa waqti qaata inaad bulsho isbedel ku samaysaana waqti qaadata isbedelku labada dhinacu doonaba ha u socdo waxaan leenahay taa'ifadani kooxdani waa kooxda saddexaad kooxdani waxay aaminsan yihiin kow ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an maxaa ku xiga yujza bih ilaahay wuxuu yidhi ammaanidiinna iyo yadidiiladiinna iyo inay iska riyootaan waxba iskuma bedelayaan tiinna iyo ta ahlulkitaabka toona baa ilaahay yidhi hadday westranku riyoodaanna riyadoodu ma jirto hadduu muslimku riyoodana riyadiisu ma jirto laakiin maxaa isbedelka sameeya man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay tilmaamay ugu horreyn markaa waxaan leenahay amalku horta yuu idinka dhimanin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayay reer maka dhibeen intay dhibeen bay nolosha ku cidhidhiyeen oo saxaabadiisii tumeen oo garaaceen oo hortiisa ku tumeen oo waxba ka qaban kari waayey oo iskaga tegey magaalo daa'if la yidhaahdo qabtay daa'ifna taariikhda waxaynu ku naqaanaa iyana inay dib u soo celiyeen dib soo garaaceen soo shiideen oo soo maageen
oo uu ka soo noqday. xadiiska bukhaari waa ka nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inuu siduu mahmuumka u ahaa lam yafiq yacni inaanu si fiicanba wax u kala garanin ilaa iyo isagoo maraya mooyaane xaggee qarnu thacaalib meel la yidhaahdo. yacni uu markii xaggana laga saaray xaggaana laga soo saaray dhagaxa lagu soo eryaday waa iska dhaqaaqay socodkii uu socday anigoo qarnu thacaalib marayuun baan is arkay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. xadiiska bukhaari wuxuu sheegaya in ilaahay malag u soo diray malakuljibaal buurahoo dhan malagga loo xil saaray baa loo soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaa la dooransiiyey malagga kani wuxuu yidhi waxaan u socdaa maanta inaan amarkaaga qaato nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam amarkaaga inaan qaato haddaad rabto reer maka akhshabaynkan baan ku daboolaya labada buurada hareeraha ka xiga ayaa lagu daboolaya reer maka dambe la arki maayo halkaa kugu dhaafaan. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ku jawaabay bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdah. may buu nebigu yidhi waxaan rajaynayaa in ilaahay dhabarkooda ka soo saaro duul maxay ilaahay keligii caabuda. yacni nebi moxamed iyadoo magaaladan laga saaro ta kale laga saaray oo noloshu caynkaa ku tahay muu quusanin. quustu waa adigoo nooloo dhinta, ya-sigu waa qof nooloo meyda. nolosha gebigeeduba waa amal. qofku hadduu nolosha amalka waayo waxbaad qaban kartaado hadduu waayo wuu dhintay. walidalik buu nebigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo dadku la nool yahay gaaladaa meel walba ka saartay ay tahay xataa iyaga hadduu u taag waayo inuu rajaynayo dhabarkooda in ilaahay uga soo bixiyo maxay man yacbud allaha waxda. xaqiiqana way noqoto ilaahay baa dhabaradooda uga soo bixiya. qurayshtaas iyo wixii la nooc ahaa ayay saxaabadu ka dhasheen. kuwii dunidoo dhan 25 sano 30 sano waxaan 50 sano gaadhin ayay dunida min Spain ilaa iyo China agagaarkiisa inta ka dhexle gaadheen. 50 sano wax ka yar ayaa intaasoo dhan isbeddel lagu sameeyey. waxlaana marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. labadan aayadood waxay tilmaamayaan labada dhanba khayr haddaad ku sugantay ina ilaahay khayrka kaa daadinin ilaa iyo tagyiru lanfus uu dhaca mooyaane. shar haddaad ku sugan tahayna inaan sharka laga bixin ilaa iyo maxay dhaco tagyiir lanfus. furaha bini aadamku waa caqaa'ida iyo wuxuu rumaysan yahay mabaadi'da ma aha xoogga iyo dhaqaalaha iyo waxa ka baxsan maaha waa insaanka waxa la isku haystaa. qofka bini aadamka weeyaan ka dhaqaalaha sameeyo hubka sameeyo media sameeyo waxaan la sheegayo dhan sameeyo inuu waxaan sameeyo waa so simple laakiin waxay u baahan tahay qofkan in la switch gareeyo qofkan in la rogo siduu wax u arkayo si aan ahayn inuu wax u arko. bini aadamka weeyaan waxay dunidu isku haysaa. aayadda tani waxay tilmaamaysaa ama labadan aayadood waxay tilmaamayaan kow tagyiirku inuu mumkin yahay wax suurtagal inuu ka yahay bulshooyinka ama xagga xun ha u socoto ama xagga san ha u socotee tagyiirku waa mumkin wax joojin karaana ma jiraan. intikaasaad in dib loo noqday in hore loo socdaa labadaba waa suurtagal. aayaddu waxay sheegaysaa bulshooyinku inay koraan iyo inay dib u noqdaan labadaba waa suurtagal. aayaddu waxay sheegaysaa ilaahay inuu wax bedelaa inay ka ratibanto iyaduna afcaasha bini aadamku sida ay isu bedesho tagyiir lanfuska. marka dadku isbedelo nataa'ijtuna inay isbedelasho. idan waa in la helaa bulsho isbedel raadinaysa oo waxyaabihii mekanismkii ama aaliyaadkii wixii wax lagu bedelayayna isku dayaysa ku hamiyaysa. isbedelku markaa waa suluuk bashari waa dhaqan bini aadam ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu dhammaystiraa. aayaddu waxay kaloo tilmaamaysaa isbedelku aaxaadu nnaas inaanu ku saabsiisnayn ee maa biqowmin baa la yidhi ummaddu ku saabsan yihi. ummadda haddii majoritigeeda dhan loo bedelo way iswada bedelaysaa. minority group laakiin ummadda ma maamuli karo. koox yari dadka ma afduubi karto.
laakiin majority-gu hadduu isbedelo aad isbeddel ku samayso way dhici kartaa. ayuha alikhwa, waxaan leenahay markaa mal camal. camalku waxa weeyaan baynu leenahay kow inaynu waaqaca aragno oo si fiican isu beddelno. waajibaadku nabiyullaahi muusa ilaahay awaamir faray. muuse waxaa la yidhi waxaad gashaa meesha loo yaqaano maxay bayt almaqdis, idkhulu alarda almuqadasata alatii kataba allahu, dhulka muqadaska ilaahay idiin qoray baa la yidhi gala. waxaynu naqaanaa inay ku jawaabeen nimankii reer banu israa'iil ma gelayno. dad dullinimada bartay oo aan si fiican u kobcin waxay dhahay annagu ma gelayno. niman xoog waaweyn baa joogooo nimankaasi hadday ka baxaan waa gelaynaa, haddayse ka bixi waayaan annagu iska joogaynaa. laba nin baa taliyo waxay yidhahdeen war haddaynu fulino ilahay martiisoo gallo waa guulaysanayna. waa la diiday. waxay yidhahdeen muusow adiga iyo rabbigaa tagoo markaa meesha furataan ayaanu idinka daba imanaynaa, markaasaanu soo gelaynaa. nebi muuse cid baa la socotay, isagaa joogay, haaruun baa joogay, yuushac bnu nuun baa joogay. reer banu israa'iilla ilahay wuxuu tilmaamayaa a'ima inay ka mid ahaayeen dad ahlu iimaan oo yahduuna bilxaq wa bihi yacdiluun. muuse muu odhanin waa reer banu israa'iil inay diideen inteenna tani aan ku tawsiinno, inteenna tani guruubkeennani aan ku dayno. ee wuxuu yidhi ilaahu cid ma hayo, in yar baan hayaan. waxaa la yidhi 40 sana ayaa tiihi ku jiraysaa. 40 sana dabaqadii way maratay, meesha geli weydi. dabaqa cusub oo la tarbiyeeyeyna way soo baxday, tagyiirkii lagu sameeyey. nabiyullaahi muusena intii tagyiirku socday buu dhacay, ayuu dhintay. wiilkii yaraabaa hogaamiyey ee yuushac bnu nuun ee xadiidka aynu garanayno ee uu nebigu ku tilmaamay in cadceedda xataa loo joojiyey, isaga baytulmaqdes furtay. yacni qofku isbeddelka in yaroo dadi ma samayso, ee waxaa sameeya marka la helo bulshadii loo baahnaa. waxaynu u baahannahay markaa mal camal. ilahay wuxuu leey waqul icmaluu, maxaa ku xiga fasayara allahu acmalakum warasuuluh. camal sameeya baa la yidhi, camal sameeya. wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlard kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa iimaan iyo camal saalixa haddii laydinka hela. camalka saalixii mid fardiya baa jira iyo mid bulshadoo dhan laga rabo isna camal saalix ah. mid fardiyo salaad iyo soon iyo furuudal acyaanka ah iyo mid bulshadoo dhan laga rabo furuudul kifaayaadkiya. hadday ummaddu kaa ku kacdo ilaahay wuxuu u ballan qaaday inay waxa kan helayaan. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadu inay isbeddel raadiyeen, laakiin ariiqu isbeddelku waa fududyey haddaan qutaacu ariiqu ka helin. laakiin ariiqa kan shayaatiin iyo qutaacu ariiq tiro badan oo dadka ka gooyaa jooga. qutaacu ariiqaasi markay ku helaanna dadku wuu qaybsamaa. qaybsankaasaa wuxuu keenaa qolo u aragta in meeshan la waday saddexdii kooxood aynu sheegayna waxay ka soo baxaan marka qutaacu ariiqa kani soo baxaan. waxaynu u baahanay inaynu masaa'il si fiican u fahmno. qur-aanku wuxuu inoo sheegay haddaad ariiqa saxa amarto isbeddelka ummaddu wakhtuu qaataa. ama afraadda ilaahay qur-aankiisa wuxuu kaga warramayaa nebiye la dilay iyagoo ariiqii haya oo sidii wax isku beddelayeen ku socda la laayay. wuxuu kaloo qur-aanku ka warramayaa nebiyo gaadhay meeshii u dambaysay. qofku hadduu camalkii iyo iimaankii iyo ariiqii uu hayo wuu guulaystay.
natiijadana waa la gaadhayaa, waa qasab inay timaado. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa koox dariiqa haysay oo la gubay. suurat alburuuj ilaahay muxuu kaga warramayaa qutila asxaabu اlukhdud annaari dati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum cala ma yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud. koox muslimiintii ka mid ah oo iimaankoodii iyo diintoodii haystay oo isbeddel raadcaynayay oo la gubay. kooxdaa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati maxay leeyihin lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar. maxaa ku xiga? dalika alfawz اlkabiir. ilaahay wuxuu yihi kuwaas liibaantii weynayd bay gaadheen, waayo iimaankii iyo camalkii saalixaa bay hayeen, ariiqii loo jeexay bay ku socdeen. maca ana iyadoo dunida markay joogeen la gubay oo aanay nataa'ijtii iyagu gaadhin, ilaahay wuxuu leeyahay maxay? dalika alfawz اlkabiir. qoladii jihaatantee guulaysatayna ilaahay muxuu yidhi fii suurati saf? maxaa la yidhi? hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin. markii lasoo waday maxaa la yidhi? tu'minuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum. maxaa ku xiga? waxaa la tilmaamay in dembigiina iyo wixiinoo dhan la dhaafayo, soo maaha? jannaat iyo masaakin ayiba ay leeyihiin. waxaasoo nimcaha aakhira marka heshaan waxaa la yidhi dalika alfawz اlcadiim. kii la gubay maxaa la yidhi? dalika alfawz اlkabiir. kanna maxaa la yidhi? guulaystay. dalika alfawz اlcadiim. inuu guulaystay maxaa sheegaya? xagga dambe ilahay muxuu ka yidhi? wa ukhraa tuxibuunaha nasru min allahi wa fatxun qariib. asalku waxa weeyaan qofka muslimkii inuu guulaysto uu gaadho ama dalika alfawz اlkabiir ama dalika alfawz اlcadiim, inuu mid gaadho weeyaan. ukhraa tuxibuunaha. markaynu afraad ku xisaabtanno, bulshadu isbeddel bay u baahantay, waa inaynu bedelnaa. ama afraadda, ilahay biqadri camalik, biqadri quwatik, biqadri taaqatik baa lagugu xisaabinaya. qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebiyo guulaystay oo ku guulaystay. nebi weliba waa guulaysto, nebi fashilay isagu ma jiro. laakiin waxaan ka warramayaa bimacna dunawi, dowladnimadii iyo madaxnimadii iyo wixii gaadhay. yaa ka mid ah daawuud iyo sulaymaan. socanka maaha? waa golden ageka waxaa lagu tilmaama alcasr dahabi libani israa'iil. nebiyullaahi sulaymaan ilaahay markuu ka warramaya waxaa lagu tilmaamay wawahabna lidaawuuda sulaymaana. maxaa ku xiga? nicma alcabdu inahu awaab. sulaymaan waa guulaystay, waa markii boqortooyadii la siiyey ee wax walba uu qabtay ee wax walba sidii loogu talagalay uu fuliyey, ee dowlad weyn oo xooggan oo technology leh oo carshigii balqiis intay ka dhoofisay sabageysay maxay? bayt almaqdis. oo carshiga siday u dirtay? technology aan maanta la gaadhin buu haystay. yacni maanta dunida waxaa suurtagala codka iyo waxyaabaha la midka ah in millisecondis lagu diro. socankaa maaha? wax ilbiriqsiya ka yar. yani inaad telefoonka ku hadasho, intaad telefoon qaadato mid kale oo maraykanka jooga aad la hadashaa, waxay qaadataa milliseconds, wax ilbiriqsi ka yar ayay qaadataa. kugu maqla aad ka soo jawaabtaa. marka codkaagiibaa inta la duuduubay, la tuuray, xagga kalea laga qabtay, wax millisecond ka yar. nebi sulaymaan isaga technologigiisu wuxuu ahaa kursi iska dhanbaa inta la duuduubo, xagga laga tuuray, xagga kale laga qabtay, dabeetana wuu jooga. dunidu maanta ma gaadhin. yani sababaa laga qaaday. muxuu waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaab baa ilaha yidhi. wax kale laguma sifayn, laynooma sheegin inuu malag ahaa, inuu jin ahaa, inuu insi ahaa. faa'iido badan ma leh noocuu ahaa. waxa faa'iido leh waa maxay? waxa lagu gaadhay waxa kani wuxuu yahay. wixii lagu gaadhay muxuu ahaa? waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaab. aqoon baa lagu gaadhaa ilaahay leeyahy. aqoon-yahanka kan ayaa wuxuu yidhi ana aatiika qabla an yartada ilayka tarfuk. ishu intaanay biri qoray, yani millisecond ayaan ku keenaya. waa technology. sulaymaankii waxaasoo dhan qabtay ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabdu inahu awaab. waa fardi muslima guulaystay, acmaashaa qabtay. nebi kalea ilaahay qur-aanka kaga warramay
wax la inooga sheegay ma jirto ilaa inuu bukooday oo jiifsaday oo xanuunsaday oo sunnadu sheegayso 18 sanadood inuu bukay oo laga tagay oo cidla ku noolaaday isna maxaa quraanku yiri ayub inna wajadnahu sabiran ha ku xiga ni'ma al-'abdu innahu awwab daawud ayub wa ni'ma al-'abdu innahu awwab sulaymaanna wa ni'ma al-'abdu innahu awwab meesha adiga ilaahay kugu qiimeyn maayo dawlad ma dhalisay ama dawladda ma timaamay isbedelkii ma dhacay adiga waxa lagu qiimeynaya nolosha intii ka hortimi waajibaadkii ka saaraa maxaad ka samaysay dad baa waxay u haystaan waxaanad awoodi karin ilaahay aakhira ku weydiinayo suurtagal maaha laa yukallifu allahu nafsan illa ma aataaha soo quraanka kaba mid ah wixii ilaahay ku siiyey unbuu ilaahay kugu takliifiyey inta aan gacantaada ku jirin laakiin macnaheedu maaha inaad fadhiyayso waa inaad wado isbedelkii wadid haddii isbedelka aad wadid natiijada waa la gaadhayaa waxaynu u baahannahay markaa inaynu fahamno da'yarta waxa in badan iskaga qaldantay markuu arko dhibta taagan iyo mushkiladda jirta iyo dacfiga kuwan haysta iyo caynka jira ayuu wuxuu rabaa qafsa booda weyn inta la boodo in xagga hore la dego isbedel baa la rabaa laakiin waxa aad boodi kartaa waa cududaadu intay tay ayaad boodi kartaa adiga waxa laga rabaa inaad hoos ka marin ni'ma al-'abdu innahu awwab ayub waa xanuunsaday waa dhibtooday waa sabray waa adkaystay ilaahay wuxuu ku yidhi ni'ma al-'abdu innahu awwab wa sifatu madhi sulaymaan waa maamulay balqiis iyo waxeedii oo dhan buu dawladda islaamiga ku soo daray jin iyo insiba ilaahay u sakhiray dunida intuu gaadhay oo dhan buu diin gaarsiiyey boqortooyo adag oo islaamiya oo cid walba ka hor tagtay buu sameeyey oo ilaahay gacanta u geliyey isna ilaahay markuu amaanayay muxuu ku yidhi ni'ma al-'abdu innahu awwab labadii midna guulaystay midna dhintayna ilaahay wuxuu ku yidhi dhalika al-fawz al-'azim iyo maxay dhalika al-fawz al-kabir mid qaata waxa weeye nolosha isbedel baa laga rabaa waanad bedeli kartaa isbedelkuna wuu imanaya laa maxaala laakiin waxaad ku dartaa adiguna inaad ama dhalika al-fawz al-'azim inaad ku dhacdo ama dhalika al-fawz al-kabir inaad ku dhacdo ni'ma al-'abdu innahu awwab ya ni'ma al-'abdu innahu awwab inaad mid u noqoto haddaad guulaysato maxaa lagaa rabaa inaad qabato ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi nabi maxamed markuu shaqadii loogu talagalay oo dhan soo qabtay aayaadkii uu ibnu cabbaas lahaa geeridii nebigay sheegaysaa ilaahay muxuu ku yidhi idaa jaa nasru llahi waalfatxu warayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi haddaad aragta ilaahay guushiisiiyo kuu timi iyo furashadiioo dhacday iyo dadkiioo diinta koox koox soo galay ood natiijadii gaadhayso maxaa lagaa rabaa inaad samayso يعني قفك مسلم كي مكبره عبادته كما وينادو نولش اسبدل كما ربو شقده لغا ربا هداد غوليستنا وفسبح بحمد ربك واستغفره هدانت غوليسن شقده لغا ربانا وفسبحه فسبح بحمد ربك واستغفره ويا إلهي wuxuu yiri badana nabi inta oo dagaalamay oo maciisa kuwa rabbi loo nisbeeyay la dagaal galeen oo qaatal iyo qutil labada qiraabo waa soo aroreen dagaalamo caynka ilaahay wuxuu leeyahay fama wahanu wama istakanu lima saban fi sabilillah wama da'fu yani waxa la tilmaamay wahni kuma dhicin may niyad jabin ya isiin may noqono dunida may u arag meelan waxba laga bedeli karin wixii sababay wixii asibay daraadeed may niyad jabin وما ضعفوا ما يتاقدر ريبا إلهي وحي اسكدين وحي أودا لسيين استعمالان وما استكانوا اسمني ديبين با إلهي والله يحب الصابرين با إلهي قبا قبا محاكا لقول كي يقول له سفيه مركا ودول لله يسد آيات وتلمامية إلهي وحلي وما كان قولهم إلا أن قالوا حيد هذا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين waxay dareemeen dibtan gaadhay iyo guushana ay hore u gaari waayeen inay iyaga ka timi dabatana iyaga dib isugu noqday waxay leeyihiin ilaahu dambiga iyaga dhaaf waxba qasmay day weeyaan ilaahu dambiga iyaga dhaaf
iyo israafna fi amrina jidkana nagu sug wansurna cala alqawmi alkaafiriin ilahay muxuu ugu jawaabay marka فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين أيها الإخوة waxaan leenahay dunida inugu xeeran saasay u eg tahay innaga waxa laynooga baahan yahay inaynu isbeddel samayno isbeddelkana qof iyo laba maahe waa inaynu bulshada bedelnaa dunidu intii hore way ka yarta way isaga dhowday isbeddelku isbeddel ballaadhan buu u baahan yahay waxaynu u baahannahay inaynu dariiqan ku suganno waxaynu u baahannahay inaynu fahmno taariikhdii bini aadamkii hore u tagtee nebiye iyo rusul iyo dad saalixiina iyo dad kaafiriinaba lahaa inay dunida isbeddel ka sameeyeen nebi maxamed keligii buu yimi soo maaha lacagna ma sidan ciidamana ma wadan keligii buu ahaa laakiin keligiibaa gacantiisa ilaahay isbeddel ku sameeyey diintaa maanta la haysta intaa leeg isagaa sababay xataa fi lcusuur kan dambe maala yaxya doctor yaxya risaaladiisa yaree culamada iyo nahdiga muxuu kaga warramaya ibnu badis buu ka warramaya algeria francisco muxuu ku talagalay francisco wuxuu ku talagalay algeria inuu ka dhigo gobol ka mid ah france gobol ka mid ah salaadii ma gaadha algeria wuxuu ku talagalay inuu gobol ka mida ka dhigo 100 sannadood markuu haystay oo af carabi la ilowsiiyey oo gobol francisca ay noqdeen oo si toosa ayaa boqol guuradii loo dabaaldegay boqol guuradii markii loo dabaaldegay waxay sheegeen islaam iyo luqo iyo waxaan oo dhan in laga takhalusay cabdilxamiid ibnu baadis ninka la yidhaahdo allah u naxariisto nin dhalinyaro oo cilmi bartay buu ahaa 24 jira xajkuu yimi madiiniya maka meelaha kan nin kaloo dhalinyaro ah ayuu la kulmay oo isna ahlu cilmiya ibraahim albashiri ninkii la odhan jiray bashiir alibrahimi ayuu la kulmay waa la wada hadlay in waddankaa isbeddel laga sameeyo bashiir alibrahimi wuxuu tilmaamayaa 9 habeen inay soo wada jeedeen habeen kasta bacda alcishahay fadhiisan jireen ilaa iyo salaada subax laga gaadhayo 9 habeen ayay khutadoodii waxooda wadeenoo fakarayeen qorayeen caqliga isugu geeyeen oo xifdiyeen ibnu baadis culamadii meesha joogtuu la tashaday sheekh ka mid ah wuxuu tilmaamay war waxba madiina intaad fadhiisataa cilmi ha dhigine waddankaagii qabo oo samee ibnu baadis waddankiisiibuu ku noqday caruur buu ka bilaabay caruur inuu wax u dhigo jiilka yaryar bal inuu soo saaro wakhti yar ayuu wuxuu gaadhsiiyey 150,000 inay noqdaan dadku haya ibnu baadis 7 sano kadib buu u yimi bashiir alibrahimi isna shaqadii buu la bilaabay kacdoonka maqashaan ee france algeria dib u nooleeyey ee jihaadka galay ee milyan iyo badhka laga dilay ee soo celiyey ka saaray francisco hal ninaa bilaabay oo casriga kan kama warramayo cusurtii qadiimkahay idan dunida isbeddelku waa suurtagal xumo iyo samaba waa la bedeli karaa laakiin wuxuu u baahan yahay inaad aqoontiisana leedahay jidkiisana hayso aqoontiisa inaad leedahay jidkiisana hayso amal rajadana aad qabto soomaalina waxay ka mid tahay ummadda muslimiinta aynu ka warramayno nooc gaara maaha waxa haystaa wax ka gedisan dunida kale waxa haysta maaha haddaynu rabno inaynu isbeddel samayno markaa waa inaynu binaa'u lumma samaynaa juhdina aynan dib u dhiganin acmaashana aynu samaynaa qimadu markaa way isbeddelaysaa sala allahu cala nabiyi muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin